waa sidee xaaladda caafimaad ee Hishaam Abu Xawaash? barnaamijkeena waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladda caafimaad ee maskiinka maxbuuska u ah Yuhuudda u xiran. kadib markii ay kasii dartay xaaladda caafimaad ee Hishaam Abu Xawaash, ururka Xamaas ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay jawaab adag ka bixiyaan, waxayna Xamaas ka digtay xaaladda Abu Xawaash. naadiga maxaabiista reer Falastiin ayaa sheegay in maxbuus Abu Xawaash uu wajahayo dil, isla markaana ay adag tahay in la toosiyo goobaha xiriirka. ila lagu kalsoon yahay oo reer Falastiin ah ayaa Al Jazeera u sheegay in guutooyinka Al-Quds garabka military ee xarakada Al-Jihaad Al-Islaami ay sare u qaadeen xaaladahooda diyaargarowga ah kadib markii ay kasii dartay xaaladda caafimaad ee Hishaam Abu Xawaash. Abu Xawaash ayaa cuntada ka soomay muddo 138 maalmood ah, wax cunto aanan afkiisa saarin. maxaabiist badan oo reer Falastiin ah ayaa ku dhibaataysan tacdiyada ka dhana bini'aadamnimadana kula kulma xabsiyada Israa'iil. hay-adaha xuquuqda aadanaha sida Amnesty International, Human Rights Watch intaba waxay ka indhalaabteen masaakiinta reer Falastiin ee lagu dhibaateynayo xabsiyada Israa'iil.